سودو برك سيدة وانفعنا مخايد حالة دورن بلا هذا وناكسن تاسيد مركورة هاي مرويجي هذيك حالة سمو وناكسنا يا أجل إيجير متى كلام ماشان أنا وحنا أيان وإيمانه ديار ولا لكن مرة ده يسوي شيء لين فدي يديق الماء يعني ديار الله وهي هذا محسمنا فرح جنجرد ما كنت أنا أساس ما جاش ما مروا البوسكين وديار كالي سوقله كالي هل كان سوفريست إن كل فايدين صدره إنسان ودرب كيدن كقاله runaaantii aniga waxaan jeclaystay markii ugu dambeysay risotooda aan meeshan ka cunay qofta sameysay magaceeda muxuu ahaanay jiif neefal waan ku weydiinaa dar waa maasan tahay qalb mujbana ha xafiiskiisu ku jiraa ay asxaabta ninkan dhalinyaradan soo arkay wax sameynaya okay hay kabliir ku jifaayay soo diray si fadhiya marwe eeji mar kale soo dhawaan ku leeyahay dhawaad talabna waa dhiibtay mahadsan marwe aniga xanaaqin wax ayaan rabaa in aan ku sheego waayay sheeg marwe run ahaantii aniga waan ka helay waxaan taa qof aad iyo aad u qurux badan mideeda kale adig iyo mudane albin waad isku soo bixisaan balse marwe idinka cayayaan ayaa idinku dul wareegsanaya oo kaadi bal cayayaan maxad ka wadaani macnaheedu neefa ayaan ka wadaa رجينا واحد بسيطة درتي إني أكون نقدان. وين رجينا نيفا. وأنا إن مرحلة ظفر بدنا وأد صومرت سيدا إن وحال بعض يسكت حسين لكن واسمر كده ما دان واحد كلي أو هراي وواحد نكسن. هذيك إمروس كلن نالو نكسين قاد دنتنا يا رجينا يا. waxaan sameeynaa caafimaadka hooyaday jiifkiinu isuma wanaagsan intaan kadib marka inuu ii wacan mari waan sii baxayaa hello yasta jiifka caanka adiga Soomaan kuma fahmin sorry naaska ka barani la Soomaan okay taas ka baraya magacii waa Amiir Farhan albalkiisana طبعا انت سون كو غهانيا برشو ناكسن انيغا نيما magacaas aniga xitaa waan ku aqaanaa qof walba adiga ayuu ku hadalhayaa mar iijin wax halkan keenay waa adiga cuntada macaan kariso Amir alb ay kara leeyahay raaxada qado sidee la tahay maqaayad si fiican u kula socotaa Soomaan طبعا sidee hore u jirto kale caafimaadka cunte oo arimaha journalka lagu soo daabacay maqaayada ma sameynayso ma maqaayad ma aysan saameynin talo ya waxa sameyn karna waxyaabaha journalka lagu soo qoray maqaayada ma sameynayso dad kale waxa weydiinaa marwseelan ayada cadow ma leedahay sheeg bal ugu jira laakiin hooyada ma laha adiga aqoon ma leedahay qofka waxa sameeyay ma huba kale balse hal qof aan tuhmayaa balse maxaad ii weydiinaysaa arrintan wax walba markay caddaadaan wix loo baahan yahay sameynaa inakeen Turkan Qasim Turkan adiga darta waxa la yiraahdaa markii hore istaajidee adiga darta buu wiilkayga fogaaday maanta oo dhan adiga waxa doonaysid ayaan sameynayay wax walba tacsi ayaan ku qabanayay laakiin imika dulqaadka ayaa iga dhamaanaya adiga darta buu wiilkayga qalbiga fogaaday adiga darta ka badbadiska ayaa dhowr sano dhibaato ii geysay laakiin maanta taa ma yeelayo inay waxaan oo kale adiga darta igu dhacaan adiga soo ima dhihin salaantaas lacag bay doonaysaa cunugan ka iibsanaynaa oo hadda ma been bad ii sheegaysayna waa sababta albi inuu gurigan soo galay u ogolaaday haddaba ilaawi waad ogolaatay laakiin waa maxay sababtaad ogolaatay ii sheeg waayo waxaad doonaysay ma taqaana mar walba dhankaaga inaan ahaado soo maaha
waad mahadsan tahay. mahadsanid farxaad. runaantii cunto dhadhan leh caafimaadka cuna. run ahaantii aniga waxaan ku fikiray maalintaasoo kale maalin dhammaanaysa inaysan noqonin marnaba. inaan ka wada hadalna maaha. waxaan ugu dambeyn heshiiskii inaad badbaadiso adiga. ahaa run ahaantii xaaladda aad ayay u qasantay laakiin mudane albi hal mar ayuu soo galay kadibne arrintii oo dhan daqiiqad ayaa lagu xalliyey gacanaan u taagaa ku dhaanikan. wiilkiina isagaba sidaas u samaysan isla markii uu guriga ka soo baxo waxaad arkaysaa dadkao dhan asaga keliya inay hadal hayaan. sidaas hadhihin walaal adigaba sidoo kale way kaa hadlaan. dabcan anuga dadka sida ii hadal hayaan iyo waxyaaba ay iga sheegaan kulli waan ka dhargsana aniga. laakiin labadiina yaraantiina hal meel ma ku soo wada korteen waan aamini lahaa yaaqe walaalayaal sheekadiina xusuuso badan ayaa ku duugan iiga sheekeeyno dhanka positive le wax ka fiirinoyaya xumaan ha ii fahmina aniga. maantii sheekada anigii familkiina haddaan kaaga sheekeeyaan ku dhahay mar walba ninka lu yidhahda masar qaasim wax qaldan oo samey jiray maxaa dhacdana waxaan soo xasuusta walaal waaga aan yareen waxaa jirta mar gaariga aabba aan beerta dhexdeeda ku qarino oon duugna isaga dhan ma xasuusta. dabcan si fiican aan u xasuusta aniga qaasim karahun wax badan oo raadiyaan taatay ugu dambeynna waa tusna soo maahana. runtii uu dhibtooda ilaa yaraantiina dadka sidaana baraanka ugu samayn jirteen miya. laakiin markaan weynaan wax walba isbedeleen. alb markuu amerika aad wax walba isbedeleen. weydiye labadiina hal meel aad joogteen sooma macnaha adiga new york aad joogta hasaatee labadiina ismaad arkin magaalada saas dhan may u weyn tahay waxyaabahaasoo kale cajiib soomaana. waad saxan tahay mudane albi adiga xitaa soo layaab kulamaha anagoo intaan amerika joogna hal mar xitaa inaan is arki weyn. inta kadib anigu buuq dooni maayo waan daale. okay haddii aad rabin inaan wada doonno qaladkaaga waa inaad qaadataa. maxaan u qaadanayaa qalad aanan lahayn sababtan u qaadanaya maxay tahay adigaa dhaawac ii geysta anigu waan doonaaye inankayga inaan soo kaxaysto nolol macaan badan aan galno weliba aan hooyada adduunka ugu qaalisanaa noqdo taas ma qalad ban ku leeyahay. cunugaaga okay waaye mee cunugaaga amiir adigay sheeg halkuu ku maqan yahay. albi adiga dartaa buu maanta wuxuu dhahay shirkaddan dib dambe ugama shaqaynayo iminkana albi la'aantii baan ku khasbannahay inaan shaqayno. isaga la'aantiis ma shaqayn karna miya annaga noloshaydii macaan badanoo kaale istaji dhiigga ha isku kicin adig kaale anigaa ku jecel soo fadhiiso tartiib iga tag waxba isdejin maaye nin naagtiisu ku aamini maayo maalin walba ay leedahay wiilkiisiina uu ka fogaaday degganaanta u taalla maxay tahay ii sheeg. doonaysay xabiib biyaha cabaxa iska daayo dhaqso qalbiyo. runtii waxaaba cajiib ahba inaad new york uga timaado inaad kambanigeena ka shaqayso maxaad qorsheynaysaa wax badan inaad sii joogtaa. markii aan imaanaya qorshahayga wuxuu ahaa si deg dega inaan iskaga laabto laakiin hadda waxyaabo badan markii aan arkay kadib qorshahayga wuu isbedelay oo waxyaabo kale ay ugu soo kordhay waxayna iga haysaa wax badan inaan halkan joogo. waa akhbaar farxad leh. runaantii wax badan oo ku harsanaan malaynaya sax. waadna mahadsan tahay emiir sababtoo markii aan imaanayay ilaa ay hadda garab ayaad isiinaysay ninkan la'aantiis istanbul inaan jooga aniga aad bay iigu adkaan lahayd. marweeji midda sharaf ayay ii tahay farxad ayaana ka helaya inaan adiga ku caawiyo. xaqiiqda waxay tahay inuu saaxiib wanaagsan yahay emiir. waad saxan tahay hadda labadeena waan iscaawinaa wax walba oo kambanigan ka yimaadana garab ayaan isku siinaa marka hore saas iskuguma wanaagsanen laakiin balse wada shaqaynteena wada hadalkeena xiriirkeena intaba waxa uu bilowday kambanigan cusub markii aan anaga heshiiska la saxiixanay laakiin waxaan la yaabanahay shaqada intaas leeg ilaa hadda ninkan waxa looga aamini layahay iyo runaantii anigii albishaq in laga hadlo waan necbnaa sababtoo anigii asaga waan kala aragti duwanaa. hadda ayaan ogaaday ka gudub waxay ahaataba aniga waxaan fiirinaya moogtahay kambaniga aan heshiiska la galnay waxyaabo ku saabsan laakiin wax cajiib ayaan arkay oo dhoofin ku saabsan
qalbi waxaan jeclaan lahaa kambaniga inaad noogu imaado oo taas mar ka wada hadalno eej intan kadib shirkadda inaan imaado laygama baahna maxaa yeele xiriirkayga la dhexi waan jecay hadda wixii ka dambeeya maqaayadeedna shirnayaa ya maxaa dhade sideena macnaa aaba muu dabcan waa ogyahay way laakiin igiraan laqo ilamaan aaba sidaasina kugu dhaafaya ma sidaasaa haddaba anigaa dhaafa ka warnay sidee haataba khayr le allah ka dhigo wayba tahawa بوليسمان maxaad u baahan tahay inay soo dhawow waxaan u maleynayaa cunto aad cunto inay soo doonatay laakiin hadda jikada waaba la xiray karhum aaway maxaad cayni lama filaanka ah wax igu weydiisan waa maxay waan fahmi la'ahay sidee wax u jiraan wax faansiin oo ku baryaay tamaam goonjo aniga xalna arintan adiga hawshaada gal hay maxaa dhacay karhum adiga hawa aniga dacwo ay saliga ka taalo si digna waxaan rajaynayaa inuu raacis maxay tahay dhibaatada jirta waan ogaa tan inay dhacayso haa waan ogaa maxaa dhacayna waan ogaa sidaa inay dhacayso mudane albis saliga ayaa la wada waan la xirayaa saliga ogaa aniga booliska ayaa xiray bax soo fiiri askari runtii waan fahmi lahaa aniga arrintan albi maxaa dhacayna waxba kama oge waa waxaan rabay in aan fahmo dacwada aniga leegu soo oogay ugu yaraan dacwadda cidda igu soo ogtay le iyo taa ma ogaan karaa korhan atiisha garaacday asiga ayaana dacwad ka soo gudbiyey maxaa ka qaldan ninka dartiisa bes neefa iska daa nakeen waa sircana waayaha albi anigana waan ku raacaya neefa maqaayadda sii joog adiga inakeen mudane mudane waan fiicanahay waad mahadsan tahay ya ma hubta albi muxuu saldhigga booliska ka qabanayaa subax wanaagsan eja sekretariyadeeda iga xaluuraysatay anigana ku imaadan garaystay hay maxaa dhaca emir waxayaan rabay inaan adiga ku weydiiyo course waad weydiin kartaa oo qaba kontraktigan waa kii kambaniga qorsheynta lala galay emir walaalka saldhigga booliska ayaa loo kaxeeyey adigana waxaan ka doonayaa abukaataa wac kadibna iga soo dababax maxaa dhaca saldhigga maxaa loo geeyey muxuu sameynaa aniga ma ogaan kari laakiin waxaan u malaynayaa dagaal inuu kale hadda waan baxinaa soo socda aniga ma idin raaci karaane waxaa laga yaabaa meesha saxaafadda inay imaado waxyaabo been ay iska asaastaan haa waa saxantay igaraal noqo waxeer albi karhoon inaan la kulma ayaan rabaa hadda baaritaana ku socda adiga yaa tahayna aniga markuu baaritaanka imaado waa la kulmi kartaa laakiin haddii aa familkiisa tahay macquul inaad la kulanto okay albi karhoon xaaskiisa ayaa waxay sug ana xaalad soo ogaanaya neefa hadda abukaatahan wacay uu imaanaya mideeda kale dad kalena waa wacay macnaha waxaa isleeyahay amay wax kala qabtaan iyagana okay soo dhaaf gaashaan leh ninkan xaaskiisa ayaa u imaaday inay la kulantay rabtaa waayay soo daa soo gudub
soo dhow neefa maxaa meeshan ku keenay sooma dhihi maqaayadda joog adiga mideeda kale qaabkan halkan aad ku timid looma baahna in aad samayso maya albi waxaan kugu dhacay aniga ayaa sabab ah hooy suldaana hadalkeedana sax ayuu ahaa meeshaan cagta dhiga burburkeeda bilowdo ilaahan kugu dhaariyay waa maxaa ku hadlaysid gabadheeda darteed ayaan wax walba u sameynaya balse wax walba aan sameynaya hadda ayaan ogaado qof kale noloshiisa inaan ku baabi'inayo marka hore gaariga ayaad nagu dhufatay kadibna maqaaxida ayaa ku xigtay haddana adigaaba xabsi ku xiran afkaagii dhagaaga islama socdaanaan u malaynayaa dunidan waxaad u samaysatay si gabadhaada ay adiga kugula noolaato wax kale oo dhan waxay ahayn wax isxigxigo isku xirxirnaa waxay sila tahay in aadan ka warhayn in hooyadii adiga darta nolol caafimaad leh ay u helayso adiga noloshaadana mudana albi waxaanaad arkaysidoo dhan waxay ku tusayaan inay wax wanaagsan soo socon dhibaatada intaan away ka soo badanaysaa haddaba marka ugu dambaysan kuu sheegaya brobalemkan anigu yaalla anuu madaxninkayga anaana xasanay tamaam maya kiiska intuu sii weynaan ninkaas koraan la dhahay anigaa la hadlaayo waxaana waan ka soo afjeeraya waan fahmi lahay sababtaadu waxaana u samaynaysid waan fahmi lahay muddada kale korhaan waa wax u reey waxaana dhan inuu gacanta kugu dhigo rabaa haddii gacmihiisa aad ku dhacda korhaan mar kale hooyadeen maxaa ku dhacaya ka fikir bal waa ku barya ha samayn korhaanna ma doonaya arrimiis mar kale inaan kaaga digo heshiiskan wuxuu yahay aniga og waana dhammaystirayaa laakiin ma ogolaanaa adiga noloshaada inuu soo faragashto dhibkan mooye dhaawacyadii aad iga dhayda kuma muuqdaan adiga dartaa ayay hooyadii jaanisl waad ku helaysaa xitaa aniga sidoo dhibta keliya inaad xusuunaato looma baahna dheefta ka fiiri dumarkula dabciyaha dunida saaran un kula meel dhigama jirto wax walba way hagaagayaan wax walba meeshan maxaa ka socdaa dhibaato sidaas u weyn ma jirto abuukaatahan wacay isagaana imaanaya wax walbana isagaa xalinayo okay waaye inay wax weyn ahayn in kalena kala ogaan elbaawe hadda baaritaan ayaa socdo koley abuukaataha aan la hadlay isagaan dhaa wax walba oo la xalinayo mudane qaasimo gaashala ayaa kugu cooyey waayahay waxir teleefonaan ku hadlaaya iga raali noqdaya okay waayahay marweeji aniga maqaayaddaa laga soo wacaya halo haddaba qofka ninkaas oo garaacay caddeen buuxda ayuu haystaa teeda kale waxaa laga arkay kaamira siisiida wax walbana halkan ayay ku cad yihiin iga raali noqo waxaan rabay albi korhoon inaan la kulmo baaritaankiisa ma dhammaada marka dukumeentiyada ayaan had diyaar
xaaskiisa gudaha ku jirto intay kasoo baxayso xaaskiisa xaaskiisan ku dhahay gudahay ku jirtaa marka waxay ogaada inta ku sugo adiga